kasoo qayb galay xafladan loogu dabaaldegayo sanad guuradii 17aad urashadii dawladda Puntland waxa anigoo ku hadlayo magaca jaaliyadda magaca guddiga qabanqaabada waxa idinku soo dhaweynayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxaan aad caawa ugu faraxsanahay inay dhalinyaro badan oo aad u da'yar ay kasoo qayb gashay barnaamijkan loogu dabaaldegayo sanad guuradii 17aad ee Puntland maxaa yeelay dhalinyarada waa jiilkii mustaqbalkii berrito waa inay bartaan dalkooda iyo dadkooda inay bartaan faa'iidada ugu weyn waa odayaashu way sii tageen maaragtay marka waxaan aad uga mahad celinayaa dhalinyarada yaryar oo xiisaynayso dalkoodii xiisaynayso maanta oo ah maalintii 1 Agosto inkastoo 7 Agosto lagu jiro laakiin waxay ka micno tahay inaan xusayno 1 Agosto inaan xusayno waa maalintii la aasaasay Puntland Soomaalida marka la fiiriyo taariikh ahaan waxaa jirto barnaamijyo badan oo horumarineed ay Soomaalida aliftay oo ka mid yahay mashruucii SYL gobonimo doonkii oo maaragtay u soo halgamay barnaamijyo badan oo taariikhda Soomaalida meel weyn kaga jiro ayaa jiro qof ahaan ama dad badan oo Soomaali waxay aaminsan yihiin mashruucan lagu abaabulay Puntland lagu abaabulay inuu ka mid yahay mashaariicda ugu weyn taariikhda Soomaaliya maxaa yeelay markii la alifayay marka barnaamijkan la abaabulayay sida hadda maanta ka socoto oo maaragtay dawlad goboleedyo dalka in laga dhiso waxay ku socdaan barnaamij adduunweynaha uu soo dejiyay waqtiga loo qabtay waxa la leeyahay waqtiga 100 maalmood haysataan barnaamijku waa inay noocaas u qabataan laakiin Puntland marka la dhisayay waxay ka timid wax loo yaqaan bottom up dadkii ay danta ka dhaxaysay oo gobolka wada deganaa ayaa maaragtay tashtay suubsaday muxuu ahay xiriirka caalamiga wax shaqo ah oo ku lahaa inay jirto uma malaynayo kulamadii lagu qabtay muxuu ahay Garowe iyo magaalooyin badan oo Puntland ka mid ah caalamka ma bay joogin waqtigaas dhulka Soomaalida ma uusan joogin marka taa waxa dareemi kartaa inuu yahay markii soo hore barnaamij ay Soomaalida aliftay si saxana loo alifay oo hoosta ka yimid dadkii gobolka wada deganaan ay ku tashteen waxa la yiraahdaa maaragtay barnaamijkan Puntland lagu dhisay laba ujeedo lahaa marka la dhisay ujeedada ugu horeysa waxay ahayd maadaama ay dawladda Soomaaliya oo dhaxay ay dhuntay in macnaheedu ay noqoto meel laga abaabulo oo laga doono in Soomaaliya dib dambe dawlad ay u hesho waana garan kartaan madaxweynihii ugu horeeyay Allah naxariistay Cabdullaahi Yuusuf Axmed inuu juhdi badan uu geliyay oo maaragtay intuusan maaragtay u imaanin waqtiga inuu kasbaday inuu xamar muxuu ahay madaxtooyadii ku noqdo marka mashruuca lagu abaabulay Puntland qodobkiisu ugu horeeyay wuxuu ahaa in Soomaali weyn laga raadiyo maanta dawladda federaalka jirto ama muxuu ahay nidaamka Soomaalida ay maanta haysato wax badan oo waxa laga dhex fahmayaa oo maaragtay Puntland laga soo abaabulay ama Puntland ay ku leedahay waxa kamid ah marka laga hadlayo habkii federaalka lagu dhisay ama looga baxay ku-meelgaarnimadii waxa laga hadlaa markastaba Garowe 1 Garowe 2 iyo heshiiskii gaalkacyo laga hadlaa marka mashruuca ujeedadiisu ugu horeysa waxay ahayd in Soomaali lagu doono welina way ka muuqataa in muxuu ay dadaalkaas iyo raadkii ay ku leedahay inuu macnaheedu lagu guuleysto yaa mashruuc weli ma dhameystirno oo maaragtay dawlad Soomaaliya oo dimuqraati ah oo qof kasto Soomaaliya codkiisu u baxsado lama gaarin We're
bilaabmi doona haddana waxaan rabaa inaan u yeero xildhibaan ka tirsanaa maxaan ku dhahaa baarlamaanka Sweden ahna macnihii muddo dheerna siyaasi ahaan cabdirasaaq waa beri baan rabaa inaan mikrofoon ku soo dhaweeyo shay kasta aasaas uu leeyahay aasaaska dowladnimada Soomaaliyeed taariikh ahaan shalay maanta oo la joogo iyo berida aynu saadaalinayno dowlad goboleedka Puntland magacyo badan ha yeelatee mar kasta waxay u ahayd lafdhabarka dowladnimada Soomaaliyeed marka aataana aad baan idinku tahniideynaya insha Allah taala taariikhdeeda marna baa mid la ilaawi karo ma aha baab sharafay kaga qoran tahay buugga taariikhda ee Soomaaliya qof jaaxida mooyaan qof kale oo diidayana ma jiro maantada aan joognana dowlad goboleedka Puntland horseed ayay u tahay midnimada Soomaaliyeed nabadgelyada Soomaaliyeed horumarinta dalka Soomaaliya balse waxay horseed u tahay ummadda islaamka ah si dib loogu soo celin lahaa sharafta iyo xurmada caalamka islaamka u lahaa marka hawsha ka socota Puntland dadka soo aasaasay dadka ka shaqeynaya maanta Ilaahay subhanahu wa ta'ala waxaan uga rajaynaynaa inuu ka aqbalo amalkooda uu ka ajiibo ugu bedelo saalihaad iyo khayr maalinta yawm al-qiyaama innagana inagu anfaco dadaalka ay sameeyeen inaynu la nimaadno mid la mid ah haddana waxaan ku soo dhaweynayaa mikrofoonka agaasimaha la dagaalanka burcadbadeeda master cabdirasaaq ducaysane soo dhawow waa cabdirasaaq ducaysane la dagaalanka burcadbadeedka Puntland بسم الله الرحمن الرحيم دمان مدن كمدشان فديعة ويسوتيا أنتي برشها كومني هذه على العلماء الدين هوين رج الليرو صحافة فنانيتا هذه عيد كلو أنك تجي تفتنا عفس ما ودي سنة دمان ثم سلامية waxaan idinku salaamayaa salaan la isku salaamatan ugu mudan oo ah nabadgelyada iyo naxariista ee boqorkiina ahaato waxaa si gaar ah u salaamayaa Cabdullaahi Jawhar iyo tiimkiisa hawshan iyada ah dhabarka u dhintay suurtageliyay ilaahay ka sokow inaynu caawa u dabaaldegno sanad guuradii 17aad ee ka soo wareegtay yaglaridii dowlad goboleedka Puntland mudane ay mar weyn sida la ii sheegay magacaygu Cabdirasaaq Maxamed Dirin ducaysan oo ku magac dheerahay waxaan ahay agaasimaha guud ee la dagaalanka burcadbadeeda in badan oo madasha fadhida waa isgaranaynaa in badan oo aanan isaqoon ama hawada iska baranay ama idaacadaha ama telefishinka iga arki jireen caawa nasiib baan u yeeshay aan la kulmo anigana farxad weyn bay tahay caawa oo si gaar ah igu tahay inaan community-ga Gothenburg ee reer Puntland caawa hortaagnahay sharaf bayt xaqiiqda runtana waxa weeye haddaan usbuuc ka maqnahay waa u xiisaa dalka usbuuc haddaan ka maqnahay waa u xiisaa sababtu waxa weeye waxa ka jira oo dhabta ah baan la kulmay mudane ay mar weyn Puntland sababtii waxa la aasaasay 1998 waxa lagu aasaasay wada tashi dadka ehelka ah meesha wada degan ay isla gaareen
isaga sheekaymayno waad ogtihiin waxaa bays u ahayd in la samaysto administration inta laga helayo dowlad Soomaaliyeed ilaa maalinta ilaa haddeer ayaa Puntland waxay tahay dadku waxay yiraahdaan waa hooyada anu waxay yiraahdaa hooyada iyo aabaha boot waayo hooyo kaliya wax ma dhashay hadaa aabaj خطبة يرى وقعنا عبد يوسف أميريا عبد يوسف وقفت بقول البيت بليزر كابناي مركب خطبة دي بينهم بالعمانية كبعدي مركب خطبة إسرائيل كبعدي وهالسوين وكل جيان مركب هذا يبناي ريك يبناي عن بليز أنا يرى ذيك اللحظة يا بليز ولا haddaan isla waramo aniga safiir Cumar baa la yiraahdaa waxaan ahay xisbiga cagaaran ayaan ka socdaa wadanka Sweden ama la yiraahdo Miljöpartiet waxaan ahay siyaasiyad cusub oo ku soo biirtay runtii dadka Soomaaliyeed waxaan deganahay kamuunka mandal cidi taqaana way taboori baa uu garanaysaa wuxuu jirin waxaan doonayaa inaan halkan hambalyo uga diro madaxweynaha Puntland iyo dhammaan dowladda Puntland waxaan aad u hambalyaynayaa meel kastoo ay dadka Soomaaliga ku hadlaan ay joogaanba hambalyo ayaan u dirayaa caawa waxaynu isugu nimid ama ugu dabaaldegaynaa waxa weeye nabadgelyo in ay Puntland nabadgelyo ay samaysatay oo dadka inta kale ee af Soomaaliga ku hadlaana ay noqon doonaan dad runtii iyaga ku dayda ilaahay waxaan uga baryaynaa dadkeena kale ee Soomaaliyeed ee aan weli gaadhin guulahan ay halkan ka muuqda in ilaahay isaga subxaanahu wa ta'aala ee iyagana u gaarsiiyo عدول يا المرض علي كادوا يقول لي عدي عدول يا المرض علي كادوا يقول لي عدل هذا يا علر ترى عدول كادي يا إبو عدل هذا يا علر ترى عدول كادي يا إبو وأسوه من دار عمري حياتي شريك إيتما عدول يا المرض علي قادر يقول لي عدي عدول يا المرض علي قادر يقول لي عدل ما يا علر انا عدول كهدي يا عيب عدل ما يا علر يا عدول كهدي يا عيب واسوق ما يترى عمري حياتي
هذا بنت الله خير كوبيدا يا بغرة هذه هذا يكبر ما هيان وبرك الله غاضي على كقبل غدوين أو باهنين ربي وهنا بربري الله باقي قهرنا صبت بهذا يل الله باقي قهرنا صبت بهذا يل وستقل قدود الله بليه هبيات بارك حرده ريو بليه مريك بليه قلبورك يا هانو لباها شنكارين حمر بنانكي سيو بوسنتو حكومه براوية بايدا بيو بوري حكاو حكابو بدوين تاكس ما ييو بحدي بدوين تاكس ما ييو بحدي شباد تاني عقيا باردي ريو بيدي قدود باردي ريو بيدي قدود بابا على شو هربعها وانكحولها حقيا بدوين رامبرتو كيال بهويت هرجيس أيوه برمي يطبر بهويت هرجيس أيوه برمي يطبر بغدي لسعان أيوه ضحى بران بغدي لسعان أيوه ضحى بران الله برتكي سلقتها وعلى بلو ملو مريا انتي لينا ما قصدا مسؤولين يو وحقرات ميرين لنا معمول كان يو وحقبات كانوا ميرا دلال موافقة يو اسمهان كان له مرتاق ميهنا وقال غير تنو مارنتا انتي موجادي لغاي ساي ما قنقشا نفلها نوما هتسديو وكما هتغشا وسيدني دوري دما شينا ما المكالي أنا شغلة بدلا وعوي دك شرف له ودك سودة ويا وواحد كلها هاي دك درس كأورا وهو مساكين السودة ويا قفكم مساكين تعكر كارا إلهي ما عكر كارا بعد وين اليوم كل تقول بنتكال تعالي اليوم بديقة حرها كلون بالقارة بدني يموت بعد وين اليوم كل تقول بنتكال تعالي اليوم بديقة حرها كلون